amisom weli wadanku way joogaan dhowr iyo 10,000 ama ilaa 20,000 ka badan oo ciidan baa ka jooga meelo toos ay iyagu waa baareen oo ay shabaab ka qabteen haday jirtana way soo baneeyaan oo shabaab dib u qabsada haddii ay sidan ku baxaan ciidanka Soomaaliyeed ma ku muuqataa in ay noqon doonaan kuwa ku filnaada deegaamada hal dhaba markaan ku sheego shabaab maanta ciidanka Soomaaliyeed uu ka awood badan yahay laakiin waxaan jirin kalsooni lambar 2 dawladii 100% siyaasadda ay culays ka saartay amniga lama saarin amnigu waa la sheegaa markaan dhab u hadlayo amnigu sheegid weeye ma aha waxa la fuliyo ma aha siyaasadda maanta oo dhan hadda waxaan ku mashquulsanahay social media iyo maxay baa la sameeyay hebel wax ka sheegay iyo hebel kuuliga meesha ku jabtay waxaasina ma aha wax oo laakiin Soomaali jarmal ma ayagu waxaan haysano anaga wax ka fiican haysana inaan anagu ishalqaano hawl gallo anaga Soomaalida waxaad moodaa 100% waxaanu tala saaranay amisom iyo UN iyo inay cid kale soo gurmato iyo marka haddaan maanta waan hubaa anaga kaliya intaan isku xidhnaano hal dagaal oo isku xidhan oo hal mar la wada qaado oo ina kullu meel gurmaneyn aan maanta wada qaado wax badan ma ka qaban karaa mana u baahanayn laakiin taasada meesha taal xalaliya Jubbaland 5 sano ka badan ay jirtaa welina meel badan waa la haystaa madaxweynaha marar badan wuxuu ku celiyay in Jubbada dhexe iyo deegaamada maqanna la soo celin doono waa su'aal fiican in fact dadku inay dhageystaan ay fiican tahay horta anaga kaliya dagaalka markaan qaadayno waa inaad heli karto logistikada u baahan tahay maanta ciidan badan baan qoray fadilaahi wa aan badan ma sameeyay wax badan ma jira marka laakiin dagaal tira waan gelayaa waxaad u baahan tahay rasaasta iyo saanadeena marba diyaar ku tahay waad ogtahay wadanka waxa saaran aan qabatay waxyaalaha wax ka soo gaari karaan wax dawladda dhexe ay si u keeni karto ama dawladaha amisom iyo dagaalkooda la geli karay hadda waxa jira Jubba corridor wax loogu magac daray oo ahayd dooxada Jubba dagaal la qaado webiga buundooyinka la qabto jiitan badan oo waxa jira marka waqti dheer barnaamijka ku qaatay kaliya marka aan ilaa dagaal baan qaadayna waad garan karaysaa rasaasta iyo waxyaalaha aan u baahan haddaan ka gudubno waxa noogu muhiimsan rasaasta oo kale haddaan masdar marka dhawaadan haysan ama wax kugu filan marka aad ku dagaal gali kartaa inay jirin dawladiina lagu leeyahay mar walba wal hawlgal baan bilaabaynaa Jubba corridor dawlad amisom oo isla hawlgalayna wax badan bay jiitaysaa laakiin hadday kalifto waxaan hadda isku daynaa inaan isku xisaabtan labaynaan sameeyno cidaan laga caawinaysan inaan u gudbino anagu logistikada aan u baahanahay waxa baahidina dagaalku ay ku xiran tahay sababta inta dagaal gashay inaad dhexda kaga istaagto waa wax dhib badan amisomna waana u mahad celinaya haddana mar walba waxay la taagan yihiin roobku markuu doo hadda roob baa jira aan sugno abaar baa jirta aan sugno rabadaan baa lagu jiraa la sugo jiita badanoo noocaasa marar badan dhacay laakiin waxaan is leeyahay waad garan karaysaa anagu inta ay tahay waxa aan kaliya la qaadi karayno laakiin hadday socon weydo inay barnaamijyadaas kale waxba ka socdaan waxaan hadda ka shaqaynaynay at least bal anaga koonfur galbeed inaanu xataa mid midaysan oo anaga kaliya aanu qaadno labadeeda dhinac si gurmadka iyaga dhexdooda uu istaago annagana inoogu soo suurta gasho inaan ka guula gaari karno logistikada aan u baahanahayna waxaan is leeyahay wax badan oo ka mid ah hadda inaan helayna rajaynayna ama hadda gacanta ku hayno dawladda dhexe ha noqoto ama meel kale ha noqoto maxaa lagu xasuusan doonaa magaaladan 5 xaafad bay leedahay sida la ii sheegay xaafad kale cusub baa hadda lagu soo kordhinaya maxaa is leedahay waa ugu tagi doontaa haddii waqtigaaga uu dhamaado markaan ka tago dadka iiga dambeeya yaa waxay sheegi doonaan waxaan uga tagay waxaad qabatay aad baad umahadsan tahay madaxweyne kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo ugu waramayay xarunta madaxtooyada ee magaalada Kismaayo.